layrarka kaliya masaajidka lagu xirayo 70 layr weeyaan yiri marooxadaha qaboojinta ahi waa 25 marooxadood batariyaashi solar systemkii infactorkii fiilooyinkii waxaas oo dhan oo la isku daray oo qiimihii ugu macquulsanaa lagu qiimeeyay dadka khibradda u lahaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan saaka ku sugannahay masjid nuur oo magaalada Garaacad ku yaala masaajidkan intii hore u daawatay in kuma cusba waa masaajid aan bilow ka soo bilownay maantana maraya meeshii u dambeysay masaajidkan waa masaajid laba dabaq ah magaalada Garaacad ku yaala insha Allah ta'ala khayr iyo ajr badan Allah ka siiyo cid kasta oo xoog naf iyo maal gelisay waa beed ilaahay dabcan maalmihii ugu dambeysay waxaan soo bandhignay daaqadihii oo ahaa in la geliyo daaqado waaweyn ahaa walaal muxsiniina bixiye khayr Allah siiyo maanta waxaan meeshan u nimid laba arrimood arrinta koowaad waxa weeye gabar dadka muxsiniinta ka mid ah oo dalka Mareykanka joogta magaceedana Xamdi la yiraahdo ayaa waxay soo sadaqaysatay qaybta weysada masaajidkan dhan qaybteeda soo sadaqaysatay haday noqon lahayd tuubo haday noqon lahayd shamiito haday noqon lahayd dhagax biyo gelintii oo dhan mutreelkii biyo gelintii oo dhan bay soo sadaqaysatay oo masaajidka waxayna u sadaqaysay aabaheed Allahu naxariiste oo geeriyooday waana sida lagu yaqaano dadka maartay baariyiinta ah waalidkood baariga oo sida lagu yaqaan way sidana ka rabana way aabaha kaliya intuu nool yahay cunay iyo maaha iyo hooyada ina cunay iyo siisid maaha waa markuu geeriyooday ina xasuusan tahay gabadhaas waxa aan hadda u soo gudbinayno waxa weeye iyadoo way sireysatay laba arrimood arrinta koowaad waxa weeye inaad noola duceysaan iyadii aabaheedba in maartay ilaahay iyadana khayr siiyo aabaheedna ilaahay ugu naxariisto sadaqada jaariyada ay u bixisay oo meesha wanaagsan ugu bixisay waana baariyada gabadhaas in ilaahay awlaadeeda iyo maalkeeda maartay ilaahay u barakeeyo inaan ugu duceyno midda labaad waxa weeyaan in dadka kale ay sidoo kale acmaasha wanaagsan waa la isaga daydaaye in dadku ay ku daydaan baan iyadana maartay u faafinaynaa khayr Allah siiyo gabadhaas midda labaad waxa weeye masaajidka maanta meesha maray oo arkaysaan waa wax walba ku dhameystiran yihiin mutreelka waa la dhigay maanta waxa laga hadlay waa weysadii oo meelihii ugu dambeysay mar haddii la weysaysto qofka tukasho u soo dhaqaaqaya waxaan rabnaa marka Sheekh Cabdullaahi adoo soo koobaya wixii hadda ka dhiman masaajidkan oo dadka muxsiniinta ayna dhageysanaya ay markaas raba khayrka jecel ay ka qayb qaadan karaan oo dhiman masaajidka ina insha Allah ta'ala nala wadaagtid sidoo kale idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad sheer garaysaan cid kasta oo wanaaga jecel khayrka jecel gaarsiisaan lambarka wadaadkana meeshaan aan kugu soo qori doonaa insha Allah ta'ala isaad kala xiriir doontaa Sheekh Cabdullaahi soo dhaw waa mahadsan tahay farxaan khayr Allah ku siiyo sida wanaagsanayd oo hagar la'aanta ahayd oo noo garab taagnayd masaajidka bilow ilaa dhamaad ajirkeedana hadda ilaahay baad ka rajaynaysaa insha Allah ta'ala inta bacdigeed warbixin kooban haddaan masjidka dadka muslimiinta aan ka siiyo maalinba baahi baa taagnayd maalin waxaan taagnayn daaqadaha oo kale walaal muxsina baxshay maalin waxaan taagnayn weysada gabadhaas waxa weeyaan muxsinada Xamdi Xuseen baa bixisay ilaahay iyadana ka ajar siiyo waalidkeedna Allah u aqbalo tan saddexaad oo maantay shayga laf dhabarka u ah masjidka waxa weeye uu maanta u baahan yahay waa masaajidkii in waxa weeyaan la ifiyo oo la nuuriyo oo ah masjidka koronto u baahan yahay masaajidka waadka Garaacad waa deegaan hadda soo koraya ma haysto koronto maaragtay ku filan masjidkana ana al-layl habeenka saacadihiisa iyo atraaf an-nahar in ilaahi subhanahu wa ta'ala lagu caabudo oo lagu i'tikaafo ayuu rabaa oo saacadna banaanaan marka wuxuu u baahan yahay oo lagu joogi kara inuu koronto helo oo layrkii helo qofkii quraan akhrisanayahay layr buu u baahan yahay qofkii i'tikaafayahay wuxuu u baahan yahay inuu qaboojiyo marwaxad helo u baahan yahay mikrofoonkii salaada lagu adimayay koronto u baahan yahay waa shayga laf dhabarta ah oo masjidka laf dhabarta u ah la'aanteedna koronto la'aanteedna hadde dadku way og yihiin maanta inaan wax suurtoobaya aysan jirin waxaan rabnaa marka dad maanta muxsiniin ah oo masjidka qaata korontadiisa qaata korontada waxa weeyaan in system solar baa la gelinayaa masjidka marka solaradii iyo batariyadii inverterkii bedeli lahaa waxa weeyaan dabka marwaxadihii laambadihii layrka intaas oo dhan waxa weey waa la qiimeeyay markaan keenay dadka waxa weeyaan ahl macrifada u ah oo yaqaanahay waxay yiraahdeen waxa kicin kara macnaha lacag gaaraysa $6,000 ayuu u baahan yahay masjidku oo xagga waxa weeyaan korontada ah
waxaan rabnaa marka maanta dad muxsiniina oo arrintaa qaadata farxan haddaan kaaga warramo masaajidku halkaasuu marayaa insha allah kusoo dhawow mar labaad yahay waa mahadsantahay sheekh cabdullaahi wax dhib badan ma ahan insha allahu tacaala walaalaha islaamkaana markay gaarto dabcan dad ama naftooda u sadaqeeya ama waalidkooda u sadaqeeya lama waayayo waxaan rabnaa inaan masaajidka ilaahay shidno oo masaajidka ilaahay layrino oo masaajidka ilaahay qaboobino insha allahu tacaala waad garan kartaa 8 saac hayno 7 saac hayno 6 saac hayno 9 saac hayno qofka cibaadaysanaya ama quraanka akhrisanaya layrka qofka u shida ajarku heli karo adoo hurda ba ajar shaqaysanaysa insha allah qofkii salaada xitaa haduu tukado masaajidda waa aragteen waa kulayl badana Soomaaliya hadii aysan helin marwaxad qofka kuma xasili kara masaajidka hadaad qaboojisid waxa weey waa ku xasilaya ajarkeedana leedahay waxaan rajaynaynaa marka in sida ugu dhaqsaha badan insha allah ay soo jawaabtaan qadar badan ma waa $600 hadaan 500 u bixino hadaan 3 u bixino 10 qof oo waxa weeye min $10 isku dartay waa $100 60 qof waxay bixin karto konton bixin karta boqol bixin karto wax fudud hal qof oo ilaahay wax siiyana waa bixin karaa marka insha Allah lambarka sheekh Cabdullaahi baan halkaan kugu soo qori doonaa waad la soo xiriiri doontaan waxa la ii sheegay in layrka kaliya masaajidku lagu xirayo 70 layr weeyaa yiri marwaxadaha qaboojinta ahi waa 25 marwaxadood bateriyaashii solar systemkii infactorkii fiilooyinkii waxaas oo dhan oo la isku daray oo qiimihii ugu macquulsanaa lagu qiimeeyay dadkii khibrad u lahaa ku qiimeeyeen $6,000 bay ku sheegeen wax badanna maaha 6,000 iyo wax ka badan in aakhira u dirsano oo geysano waxna anfacaya barakallahu fiikum waxaan ka rajaynaynaa hawsha ka soo jawaabtaan sida hore uga soo jawaabi jirteen aan kaga baranay insha Allah ta'ala khayrna Allah idin siiyo gabadhaas walaalo ah oo lacag soo sadaqaysatana khayr iyo baraka badan ilaahay ha siiyo sheekh Cabdullaahi waan ku wareejinayaa lacagtaas meesha weysadana lagu dhisi doonaa waalidkeed baan lagu dhisi doonaa idinkuna sidaas oo kale waalidiintiin insha Allah cidii wax heli karta inay u sadaqaysaan idin ka rajaynaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barakallahu